bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu saaxiibayaal daawadayaal meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalka iyagu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa bartaanu youtube-ka ku leenahay ee runsheeg saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa ka mid a saraakiil awood badan ku dhex leh hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka NIS oo loogu hanjabay dil qaramada midoobay oo shaacisay dakhliga bil walba ay ururiyaan al-shabaab iyo laamaha amniga oo sheegay inay qabteen dad lagu tuhmaya qaraxii sarkaalkii lagu dilay qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibada inagu xiran oo idiin soo gudbin doonaa hadduu rabbi raalli ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaa si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad janalka subscribe inoo saadhaan like-dha nagu dhiiragelisaan gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyey aad u heshaan idinkaan leh saaxiibayaal sida hordhac warkaygaba aad ku daawateen haddaynu ku bilowno saraakiil awood badan ku dhex leh hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa hadda waxaa loo soo dirayaa fariimahan jabaada qaarkood waxay gudbiyeen iscasilaada maadaama ay ka warheleen in lagu soo wajahan yahay ayna khatar ugu jiraan in mar walba la bartilmaameysado iyagoo hubkii iyo ilaaladiiba laga wada qaaday isbedelka maamul ee dalka ka dhacaya durba saameeyay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka NIS iyada oo la bedelay taliyihii NIS ee gobolka banaadir garoonka aadan cadde iyo goobo kale oo muhiima saaxiibayaal ilo xog gaal ah ayaa waxay xaqiijinayaan in isbedelkani uu saameeyay dhammaan saraakiishii hogaaminaysay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka muddadii 5 sano ahayd madaxweyne farmaajo sida wanaagsan ula shaqaynayay hadda waxaa loo dirayaa fariimahan jabaad u muuqda waxaana lagu cabsigelinayaa inay isaga baxaan gudaha magaalada muqdisho haddii kale ay saacad walba wajahayaan dil taliyihii dabagalka NIS korneel cabdulaahi dheere ayaa ka mid ah dadka loogu hanjabay dilka waxa uuna markii loo hanjabay uu go'aansaday inuu iscasilaadiisa u gudbiyo taliyaha cusub ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka mahad salaad balse mahad salaad waa uu ka diiday inuu istiqaalada iscasilaada oo ka gudoomo markaasi waxa uuna tilmaamay inuu howlo badan ku lug lahaa sidaas darteedna aysan macquul ahayn in uu ka qabto iscasilaadiisa ilaa xogogaal ah ayaa sidoo kale waxay xaqiijinayaan in korneel cabdulaahi dheere uu si toos ah uga badbaaday dhowr jeer isku day dil tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud xukunka uu la wareegay mahad salaad ayaa tilmaamay in cabdulaahi dheere aan marnaba laga aqbalayn inuu iscasilo balse cabdulaahi dheere ayaa hadda u muuqda mid ka tegi doona dalka isagoo xubin ka ah hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka sida ay xaqiijiyeen saraakiilka agdhow cabdulaahi dheere saaxiibayaal cabdulaahi dheere hadda waxa uu dalbanayaa fasax si uu ugu dhunto amaba uga dhunto dalka maadaama uu ka cabsi qabo in saacad walbaba la dilo cabdulaahi dheere oo aysan kaamiraduhu qaban oo ah shaqsi qarsoon ayaa hadda waxa uu safar u yahay dalka dibadiisa isagoo hadda ku sugnaa baryihii ugu dambeeyay dalka Mareykanka markaasi uu halkaasi u aaday inuu nafsadiisa ku badbaadsado maadaama marxaladii kala guurka ahayd ay nafsadiisa khatar weyn gelisay cabdulaahi dheere waa nin aan warbaahinta ka soo muuqan sidaas oo kalena waa nin saameyn ku leh howlaha arrimaha gudaha iyo sidoo kale dibadda waana shaqsi aad u firfircoon oo meel walba oo wax looga diro sida ugu macquulsan uga soo qabta waxa uu 5 sano la soo dhaafay xogogaal u ahaa wax walba oo dalkeena dhibaato ku ah isagoo qayb ka ahaa sugidda amniga sidoo kalena waxa uu bixin jiray degniino la xiriira amniga kuwaas oo shacab Soomaaliyeed iyo sidoo kale xubno ka tirsan dawladda ay ku badbaadeen qaarkood xitaa mucaaradka ayuu ka badbaadiyay isku dayo dil oo loo maleegayay tareenkii xasan sheekh maxamuud oo hadda u muuqda mid aarsi ku bilowday ayaa waxaa diiradda la saarayaa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa shalay la weeraray guriga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka sidoo kale cabdulaahi dheere hadda waxaa u soo dhacaya fariimahan jabaada kuwaas oo kaga imaanaya isla rugta uu ka tirsan yahay waa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka cabdulaahi dheere waa uu ka warqabaa cidda u soo diraysa fariimaha maadaama uu yahay shaqsi aad u firfircoon oo meel walbaba ka warqaba balse hadda waxa uu doonayaa isagoon afkiisa furan ama aan cid gooni ah farta ku fiiqin inuu dalbado fasax uu ku aadayo dalka dibadiisa si uu markaasi uu si toos ah ugu sheego bartiisa
Facebook ama meelaha kale uu bulshada kala xiriiro in uu xilkaasi ama jagadaasi uu iska casilay maadaama istiqaaladiisi laga aqbali waayay. agaasimaha cusub ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NIS Mahad Salaad ayaa maalmahan wada in uu beegsado shaqsi walba oo ka aragti duwanaa muddadii 5 sano ahayd isaga oo si toos ah ugu bareeraya oo aan waxba qarsanayn. ninkan waa Cabdulaahi Dheere, daadiisa waxaa lagu qiyaasaa maba lagu sheegay 28 sano jir, waana xuuna ku dhashay dhulka Soomaalida dowlad deegaanka Soomaali Galbeed. waxauna 2007 ilaa 2010 ku sugnaa gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. qodobada kale aan saaxiibayaal hanana waxaa kamid ah qaramada midoobay ayaa shaacisay dakhliga bil walba ay ururiso Al-Shabaab. sida laga soo xigtay xarunta daraasaadka istiraatiijiga Afrika, tirada weerarada Al-Shabaab ayaa kor u dhaafaya 1771 waxayna gaareen 2072 sanad kadib bixitaankii Mareykanka, taasoo ka dhigan koror dhan 17% waa qiimo weyn marka loo eego xaaladda uu dalku ku wajahayo. dagaalada lala galay ciidamada ammaanka ayaa kor u kacay 32% bishii la soo dhaafay. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ilaa 450 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ay ciidamada midowga Afrika ku leeyihiin Soomaaliya, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 40 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi. quburada qaramada midoobay ayaa Al-Shabaab ku tilmaamay kooxda ugu awoodda badan Al-Qaacida ee xiriirka la leh, waxayna ku qiyaaseen in ay leedahay ilaa 12,000 oo dagaalyahan oo awood ay ku ururin karto dakhliga bishii gaaraya 10 milyan. in ciidamada Mareykanka ay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya waxay saameyn doontaa isbedel weyn ayay tiri Samiira, madaxa fulinta macadka Hilaal oo ah hay'ad cilmi baaris oo fadhigeedu yahay Muqdisho isla markaana diiradda saarta arrimaha ammaanka. Samiira ayaa hadalkeeda intaasi ku dartay ma guuleysan doonto dagaalka, laakiin waxay siin doontaa maamulka cusub si uu u dejiyo mudnaanta amniga walwalka soo laabashada askarta Mareykanka. sidoo kale tababaridda, la talinta iyo qaabaynta waxay Africom ku tilmaantay ciidamo wadaag ah maadaama Mareykanka waxay yeeli doonaan awood joogto ah oo ay ku beegsanayaan ku dhawaad 12 kamid ah hogaamiyaasha Al-Shabaab. qodobada kale aan saaxiibayaal hanana waxaa kamid ah laamaha amniga ayaa sheegay in ay qabteen dad lagu tuhmayo qaraxii sarkaalka lagu dilay. ciidamada booliiska gobolka Banaadir oo kaashanaya ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa xalay howlgallo lagu xaqiijinaya amniga waxay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Dayniile, waxaana ama gaar ahaan waaxda Gurdama, halkaas oo shalay uu ka dhacay qarax lagu dilay sarkaal kamid ah ciidamada militariga iyo ilaaladiisa. howlgalkan oo hirkacayeen saraakiisha ciidamada taliska qaybta galbeed ayaa waxay saraakiishu sheegeen in uu ahaa mid looga hortagayo dilalka, falalka amni darro, kooxaha burcadda iyo alweerada iyo kuwa isticmaala waxyaabaha ammaanka dooriya. ciidamada booliiska ayaa baaritaano ku sameeyay qaar kamid ah guryaha ku yaala xaafada degmada Dayniile oo ay howlgalka ka sameeyay, waxayna ku soo qabteen dad lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen qaraxii shalay ka dhacay agagaarka argada degmada Dayniile iyo waxyaabaha maanka dooriya oo baca ku jira. taliyaha saldhigga qaybta galbeed ee ciidamada booliiska gobolka Banaadir Yaasiin Nuur Khayr ayaa sheegay in dadka lagu tuhmay qaraxa oo ay qabteen lagu gudbin doono hay'adaha kale ee amniga, isla markaana ay tilaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo liddi ku ah amniga. waag saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanaysaan Run Sheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusubtihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa channelka subscribe inoo saadhaan, like-na nagu dhiirigelisaan, gabalaalka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka alleh.